deegaankaas aan kasoo jeedo sanad walba July markay tahay koodeeda dad baa mudaharaada calankii dowladda Soomaaliya la soo baxa sanad walba dad baa ku dhintay lagu xabadeeyaa waxaa jira dad badan oo ogoleyn in dalku kala go'o laakiin khasab xukun military runtii ku jooga oo magaalooyinka qaar lagaga maamulo cadaalad darray tigsanayaan waxay tigsanayaan development aan oo riboorada Soomaaliland ka soo baxa ku jira in deegaanadaas bariga oo kaleeto ayan helin wax u dhow maxaan ku idhaahdaa wixii ay xaq u lahayn proportionally wax loo qaybsado in a nutshell Soomaalida nasiib darrada ka dhacday waxa weeyaan maamuladii ka samaysmay oo fog ka soo bilow meel walba oo tagto beelay noqdeen beel baa ama meesha ka talisa ama ku badan oo geographically ka dhigatay maamul taasina mid xal noqonaya ama mid dal dhisaya maaha Kismaayo haddaad tagto iyo haddaad Baydhabo tagto iyo haddaad maaragtay gobollada kale soo marto Puntland iyo Galmudug meelaha la iska qasqasan waa laga yaabaa laakiin Somaliland dooda iyo dowladnimada micnaheedu wuxuu u badan yahay haddaan la isyeelyeelaynin waxa weeyaan waa beesha dhexe weyn iyada xukunka haysata iyada xoolaha haysata iyada wax walba haysata fine marka beesha xaq way u leedahay inay waxay doonto sheegato oo ay siday doonto maaragtay sida way ku badinaysaa ay samayso xaq hadday u leedahay inay ka go'do Soomaali inteeda kalena dadka kale waxaan u leenahay inaan baxno wax isqabanaya maaha saddex xisbi baa jira la yidhi oo saddex qaybood oo beesha dhexe aasaan u fahamsanahay waa la isixi karaa adaan khaldanahay ayaa iska xisbi afaraadna lama ogolaanayo marka cadaalad darrada laga sheeganayo iyo xasuuqa laga sheeganayo iyo waxaan oo dhan iyadoo jirto sympathy laga hayo ayaa haddana intaa in eg baa ku dhacaysa dadkii meesha joogay oo aan laga hadlayn oo la taabanayn meeshaan ku socdo ma aha actually inaan tirsano oo caawo dhan aan idhaahno waxaas ay u dhacayo waxaas ay iga maqan sababtoo taasi xal keeni mayso waxaan rabaa inaan ka aadno maxaa xal ah markii aan dowladda dhexe la shaqayn jiray mar aan la kulmaynay madaxweyne Siilaan iyo tiimkiisa oo la kulmaynay Addis Ababa ayaanu kasii sheekaysanay maxaa xal noqon karo ula tagnaa wafdiga ka imanaya Somaliland waxaan brainstorm garayno isweydiinay wax walba in la ogolaan karo oo aan ahayn kala go madaxweynahan waxaan weydiinay madaxweyne haddii kursigaaga loo soo dhigto leeyahay kursigan aan doonayna oo xal uu noqonaya maxay kula tahay abaar buu aamusay wuxuu diyaar buu leeyahay marka la tegay Addis Ababa intii baa la geeyay caasimadda in la soo wareejiyo oo madaxweynaha la soo wareejiyo oo wax qaybsiga sidii lagu daawoobayo la soo wareejiyo runtii way soo dhaweeyeen wafdigii laakiin waxay yidhaaheen wuxuu u baahan yahay in laga shaqeeyo wax mar qura oon hawla geli kara maaha haddaba waxaan doonayaa inaan soo jeediyo xal ahaan waxaa weeye waqtigoo kooban war waxaa la yidhi 1960 markii la geeyey Muqdisho xukunkii waana la dhacay oo wax walba waana laga qaatay maxaa diidaya hadeerto inaan idhaahno koonfur iyo waqooyi aan waxu qaybsano oo wixii naga maqnaa iyo xoogaas bursi oo maaragtay affirmative action aan kusoo darsano intaan haysano iyo in ka badan waan ku heli lahayn maan khaladkaa saxno oo xuquuqda iyo generaaladii ciidamada iyo wasiiradii iyo madaxweynihii iyo wax allaali wixii aan ku dawoobayno maamullo tagno oo ka doonano maadaama aanan isku raacsanayn dadka iyagii waqooyiga degay in cadaaladnimo ka jirto go'itaankana aanan isku raacsanayn waa mahadsantihiin